سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته أخيارتي قيمة يقدر انت مدن واحد مالين ما أحد أكتوبر سقالتا إلا بدا كوني اللبي اللباتنك كسو دوادا قضو بدا حيسا لأن ما انت دينكا يورباينتا ورقيس كسيتي جامعة الدري دبا وسوقنا ندي هوليه وديارقلو وقاديستا امتحانات كفصل كاللبي التمنادو بريس الرسمي أو بلامي دونا sidoo kale Dr. Abiy Ahmed oo bogaadi wax soo saarka beeraha deegaanka Soomaalida ayaan ku soo qaadanaynaa khiyaaray qodobadaasi iyo kuwa kaleba ku soo dhawaada iyagii oo fidsan aan ku bilaabay jaamacadda Diridhabe oo soo gunaanada hawlihii u diyaargalowga qaadista imtixaanka fasalka 12aad ee heer qaran oo berisi ballaaran loogu qaban doono jaamacaddaasi Diridhabe isla markaasina ay ka qayb gali doonaan ardayda dugsiyada sare ee gobolka City iyo kuwa magaalada Diridhabe jaamacadda Diridhabe ayaa galinkii dambe maanta wacyigelin ballaaran u qabatay arday ka badan 11,000 oo qaadanaysa imtixaankaasi fasalka 12aad gaar ahaan ardayda culumta cilmiga bulshada ee social science-ka loo yaqaano waxaana sharaxaad guud laga siiyay hawlaha imtixaanka waxyaabaha laga mamnuucay iyo waxyaalaha ardayga u bannaan sidoo kale imtixaanka fasalka 12aad haddaba wuxuu doctorku sheegay in maxaan ku dhadane inta lagu guuda jiro imtixaanka ay ardaydu kaliyaata muhiimadda ay saaraan imtixaan nidaamka maritaanka imtixaanka sidoo kale haddana wuxuu sheegay in jaamacadda Diridhabe diyaargalow kasta oo loo baahan yahay siday ardaydu si wanaagsan ama ay ugu hirgeli lahayd maritaanka imtixaanka ay dhamaysay jaamacaddu idinka uu niiga baahan yahay inaad idinkuna jaamacadda garab istaagtaan sidoo kale haddana waxaa maanta barnaamijka la qabtay wacyigelinta ama orientationka waxaa loogu talagalay in maxaan ku dhahdaa wax niiga sheego xeer hoosaadada kala duwan la xiriira imtixaanka beritola noo bilaami doono haddaba imtixaanku sidaan wada ogsannahay beritola ayaa maxaan ku dhahdaa shaaca laga qaadi doonaa waxa uu doctorku sheegay in beritole barnaamijka quraacda uu ka bilaamayo 11 ama 5 subaxnimo ilaa 7 subaxnimo uu ku gabagabeysan doono nidaamka maxaan ku dhahdaa ama barnaamijka quraacda idinkuna ka arday ahaan aad hore isugu diyaarisaan imtixaanka beritola aad bilaabi doontiin sidoo kale imtixaankan ama maxaan ku dhahdaa imtixaan qaadayaasha ama macallimiinta waxaa laga keeni doonaa goobahay degan yihiin isla maxaan ku dhahdaa 6 subaxnimo laga bilaabo 7 iyo barka subaxnimona imtixaan qaadayaashu waxay diyaar igu ahaanayaan goobaha imtixaanka ku qaadanaysay haddaba wuxuu doctorku carabka ku dhiftay uu ku adkeeyay uu fariin nii gudbiyay in aad ka arday ahaan aad maxaan ku dhahdaa muhiimadda uuna saartiin kaliyaata imtixaankan aad u imateen jaamacadda Diridhabe sidoo kale inaadan maxaan ku dhahdaa dhibaatooyinka kala duwan aad kala kulmi kartaan nidaamkan imtixaanka aad sidaas maxaan ku dhahdaa xoogga aanad u saarin oo kaliyaata fiiradiina saartiin imtixaankan haddana wuxuu maxaan ku dhahdaa doctorku fariin nii gudbiyay inuu imtixaankani uu nii noqon doono ama ahaan doono imtixaan wanaagsan oo natiijo fiican aad ka keenaysiin aad iyo aad baad u mahadsantiin waxaan ka midnahay ardayda sanadkan maraysa 12aadka laguna aftaxayo in jaamacadaha ku maraan handuu ilaahay yiraahdo saayay haddana imtixaanka waan u diyaar galownay inaan imtixaanka jaamacadda ku qaadanana waa sababtan xaggan ugu imaanay weeyaan saa darteed wallahi wacyigelintii maantana waxyaabo badan oo markii horeba aan meel aan kala xiriirna lahayn ayaan ka faa'iidinay sidoo kale ardaynaga mid oo telefoonka wadan oo soo ilowday in telefoon ugu mar dooniyo in kale maanan garanayn sidoo kale dadka admissionka ka xumaaday ama magacdoodu saxnayn meel ugu hagaagan ayaan garan lahayn marka taas bay naga caawisay wacyigelintii maanta intaas waan ka faa'iidinay sidoo kalena waxaan aad ugu hambaleynayaa waxaan rajaynayaa inuu si fiican imtixaanku noogu dhamaado saa ay tahayna imtixaankan 12aadka waa markii ugu horeysay ay dhacday tan oo kale in jaamacadaha lagu maro arday tiradeedu inta 11,000 ay tahayna lagu soo xareeyo jaamacadaha markaas saa darteed arday kala duwan qowmiyado kala duwan meel kala duwanba meesha waan isku aragnay sida ardaydu hore igu sheegeen waxyaaban guriyeena ku ogeeyna waan kala kulannay waxaana khibradan bay noo tahay iyo insha Allah والله ما شاء الله الحمد لله سفي عم بين نلوس قابل سفي عم نلوس دويي وعيقلنت جامعتنا ده سفي عم وعيقلنت نو قادني
aad bay wax walba u socdaan si fiican marka bal ka waran maxay kaga duwan tahay wasleeday imtixaanadii hore markaad eegtay imtixaanadii hore markii hore de ma garanaysaa inta la xiftiyo imtixaanada hore maxay daanay ardayda in baa moral jabi jirtay inta deegaanada kale ka marta qish bay heli jireen markaas in kastoo qish heli jireen maanta meel midaata lagu wada maraya arday moral jabi ma laha nin iyo talkii wuxuu u gooy weeyaan ma diyaar garoos si fiican ma diyaar galoway maxaa sababtoo ah waxa xagan isku soo xareeyba waa sidaan imtixaanka u qaadan lahaa marka imtixaanka aan qaato aan dhameysana insha Allah waxaan rajaynayaa inaan si fiican kaga baxo ardayda u horeysay aan ahay aan lagu daafuray fasalka imtixaanka 12aadka oo la isku soo xareynayo jaamacadda والله لا امتحانات قرط سيفي عم يسكسو ديري أنا وحن ماشي كوسو كرسوني كوسو حريده وحن أنا وصو حفيده أمان سكو كرسونا ذي جامعة إكسبيري أنا بيته ما دام يقول رسي كوي جاي قدام بيوم سيشو جاي إكسبيري أنا وصيالنا ما دام كوي أردي يقول رسي يقول فرن قدر وحن إمك هالميل أولدي هلا حلو قمري يدقمين كين قش يوحبل هيري شري قاربل ريدي قرنا ولا ما أنت هميل مذا أيان كولا جوابنا نيني يتال كيس هم ورد كيسو كبحدونا hay-adaha nabadgelyada ee ka howlgala jaamacadda Diridhabe ayaa ardayda iyo guud ahaanba bahda jaamacadda ku codsaday inay kala shaqeeyaan howlaha nabadgelyada Dr. Abiy Ahmed oo bogaadiyay wax soo saarka beeraha deegaanka Soomaalida mas'uuliin horkacaya ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa booqday dhul beereedka qadiimiga ee Tuli Guuleed ee gobolka Faafan waxaana ku weelinayay socdaalkan xubnaha guddiga fulinta iyo xisbiga barwaaqo ee dalka ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay inuu awoodo inay soo saaraan qamad naga iska daaya ayaa waxa uu yiri xillaa iyo wadamada dariska ayaanu ku filanahay waxaana xusay intaasi hadda ay wiiqayso tusaalena u noqonayso wax soo saarka deegaanka inuu kor u sii kacayo sidoo kale madaxweynaha deegaanka mudane Mustafa Maxamed Umar oo geestiisa kulankan ka hadlay ayaa sheegay in laga miro dhalinayo qorshaha dalagga iyo daryeel ee lagu xoojinayo wax soo saarka guud ahaan taasoo laga maarmi karo wax soo saarka dalalka shisheeye isla markaasina lagula dagaalami karo cadawga hadda oo saboolnimada akhyaarteeda qiimaha iyo qadarinta mudana waxaan ku soo afmeereynaa waa xuskii dhalashada Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam oo si ballaaran xalay looga dalbaadegay magaalada Shinile munaasabadan xuska dalbaadega dhalashada Nabi Maxamed ayaa waxaa lagu qabtay xarunta dhalinyarada madadaalada ee magaalada Shinile waxaana ka soo qayb galay dhalinyaro iyo culumaa diin kuwaasi oo munaasabadaasi ku xusayay salliga nabiga صلى الله عليه وسلم الكاسو أنكو حسين مقالة شنيلة هولكي مقالة تدد برتميد هذا أنكو حسين وبحرينكي مولد النبي لما بارك الشعب كي شرفت لها شنيلة اسكوي ميدهال كان حس آدو وناكسن بانال كان كل دقاينا النبي كصلي اللهم صل وسلم وبارك عليه سفي أمة النبي محمد إله قلبي ولا هنولي إله نديله هندورين إله فضلك رسولك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم إله لما أنت بركتي إله نسي جنة فردوس عن عسلنا إله مقالتنا مشرع تي قول كستي أردن أمبا دولة ديجان كصومالية أمبا دلك إثيوبيا أمبا جيس كأفريقيا أمبا عالم كتيقة بشة
الله كدغ إله أمة النور إله ما تدي عرورتنا إله انتفاع نوجل إله انتفاع نوجل إله وحان قبلنا خير كدغ إله نبتقل يان كويديسن إله عدي دباته ودنا إله نقا إله حق الدم بكسي إله حق الدم بكسي إله نقا قبو إله نقا قبو نبتقل يان كويديسن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سنة كيسن إله كي نبتقل يا رساقات واسعة يا لمان انت عاو هالكا فردي انت مقام بيسارق وناكسن كوين كحس إله نغير إله عبادة تامة إله عبادة تامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح isla warbixinteena caawa ayaan ku guda jirnay ciidamada dalka Djibouti ayaa bilaabay howlgallo ka dhana kooxda jabhadda canfarta ee argagixisada oo weeraro ku soo qaaday saldhigga ciidamada Djibouti ku lahayeen Garabistan ee gobolkaasi Tajoore. ciidamada Djibouti ayaa lagu amray inay soo afjaraan kooxdaasi fallaagada ee dawladda ka soo horjeeda, waxaana ay wadaan dadaallo xooggan ay ku baadi goobayaan iyagoo baacsanaya kooxahaasi isla markaasina ku dhuumaalaysanaya gobollada waqooyi. jabhaddan ayaa lagu soo warramayaa inay saldhigyo ku leeyihiin xadka dalka Eritrea, Itoobiya iyo Djibouti u dhaxeeya ee saddexda dal kulmiya isla markaasina ay dabada ka riixayaan kooxo aan magacooga la sheegin. akhyaarteeda qiimaha iyo qadarinta mudano intaa ayaan ku soo afmeeraynaa wararkeennii caawa. intaan warkan war lamida ku kulmi doono, fadlan haddaad nagu cusub tahay like iyo subscribe aan naga ilmaamin. haddaad la joogtayna waad ku mahadsantahay la joogistaada. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa amaano Allah.